hooyadan aad u jeedaan oo ay haybadu ka muuqato oo qof ma sha Allah aad u malayso ka waran hadaan ku yiraahdo gabadhii ay ayadu dhashay ayay dishay hilbaheeda ayay jarjartay kadibna eeyo ayay siisay hameen madow ayay hilibkii gabadheeda eeyaha uga tagtay xilligaas marka waxay u guureen guri jajaban dabaq cidla ah mugdi ah koronto la'aan ah fool xumadii ka batay yani meel qabri caadi ah gabadha ayay farihii oo dhan ka jarjartay iyo cidiyihii waa ay qaaday hameenkii meel bannaan ah eeyo joogay ayay u geysay waana ag joogtay oo way ilaalinaysay ilaa ay eeyuhu dhammaysteen farihii gabadheeda marka ha ku sirmin muuqaalka dadka muuqaalka maamadan ee kore iyo xaqiiqadeeda dhabta aad ayay u kala fog yihiin muuqaalkan ayaan rabaa inaan ku faahfaahiyo qisada maamadan iyo gabadheeda soo dhawow daawade muuqaalkan like saar una sii share garee saaxiibada friendska kula ah haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh si aan u gaarno 20,000 oo subscribe sidoo kale gambaleelka furo si muuqaalada aan halkan soo gelino ay isla markiiba ku soo gaaraan horey noo wada saaxiibayaal maanta waxaan ka sheekaynaynaa waa Sucaad maamadan aad u jeedaan waxay guursatay sanadii 1993 nin caadi ah oo ragga ka mid ah oo doonayay inuu reer dhisto noloshii guurka ayaa halkaas uga bilaabmatay marka ninkan wuxuu ahaa nin dulqaad badan maadaama naagtan weligeed bay ahayd qof amar badan dhibaato badan ninkan qalbigiisa ayuu adkaystay waana u dulqaatay gabadhoodii koobaad ayaa u dhalatay waxay u bixiyeen Yaasmiin gabar kale ayaa ku xigtay Hinda ayay u bixiyeen wiilkan oo ilmaha ugu yara ayaa ku xigay waxayna u bixiyeen Waa'il saddex caruur oo qurux badan ayuu Ilaahay siiyay laakiin maadaama ay ahayd qof mar walba khilaafka iyo dhibaatada ay ugu baxdo ayada iyo saygeeduna wax yar ba heshiis ma aysan ahaa karin markii la soo gaaray 2010 waxa dhex maray khilaaf aad u weyn oo sababay inay isfuraan oo halkaas ay ku kala tagaan ugu dambeynna boorsadiisa ayuu ka qaatay ninkii odaga ahaa oo uu ka tagay ayada iyo ilmaheeda ayaa isku soo haray mas'uuliyadda ilmaheeda oo dhan ayada ayay ku soo wareegtay inay tarbiyeyso ilmaheeda ayada ayaa laga rabaa laakiin ma aysan ahayn qof tarbiyada ilmaha ku fiican ilmaheeda ay ayadu dhashay ayay kala xigsan jirtay oo kala ximi jirtay wiilka ayay aad u jecleed oo gabdhaha ka xigsan jirtay wiilkuna waxa uu aaminay aniga ayaa meesha rag ka ah gabdhahan aniga ayaa tarbiyeynaya ayagoo ka waaweyn ayuu jirdili jiray garaaci jiray sidoo doonana uu ka yeeli jiray noloshii noocaas ahayd oo aan ixtiraamka iyo kala dambeynta lahayn ayay isaga noolaayeen ugu dambeyn xabsa waxa ay furatay dukaan lagu iibiyo waxyaalaha wax lagu nadiifiyo wiilka ilmaheeda ayay halkaas ka soo dhacsan jirtay tacadiga iyo dhibaatada iyo jirdilka ayay ayada iyo wiilkeedu ku hayeen gabdhahan laakiin ugu dambeyn Hinda waa labada gabar mid yareede waxay la timid wiil dhalinyaro ah muxtaram ah oo ay in badan wada socdeen in badan isjeclaayeen wiilka ayaa watay oo guursaday islaam ayaa lagu magacaabi jiray wiilkan waxa ciqaabti iyo noloshii ciriiriga ahayd ku soo hartay marka Yaasmiin waa gabadhii weyneed waana laga hor guursaday ayaduna ugu dambeyn 2020 ayay waxay keentay nin dhalinyaro oo ay wada socod jireen oo u sheegi jiray inuu indhihiisa ka jecel yahay waana uu soo doontay waa la siiyay oo waa uu guursaday ninkaas ayadana waxayna ka baxday noloshii jaxiimada ahayd oo ay ku jirtay laakiin ninkii dhamaa oo ay soo guursatay oo ay aad ka u jecleed markii ayaan yar ay wada joogeen xiisihii iyo jacaylkii iyo wixii ay soo yaraadeen wuxuu soo noqday nin kale qof cabsi ah ayadii jirdilaya mar walba dhibaataynaya oo midii gurigeeda lagu hayay mid ka daran ku sameynaya waa ay ka soo tagtaa hooyadeed iyo walaalkeed ayay u soo dacwootaa ayaguna waxay dhahaan naabax ord gurigaaga aad ninku mar walba waa uu jirdilayaa nabaro ayaa jirkeeda ku yaala walaalkeedii ka yaraa oo la dhashay ayadoo walaashii sidaan loo jirdilayo oo loo bahdilayo ayuu asaguna ku diganayay maalin ayuu Facebook wuxuu ku soo boostigareeyay walaasha Yaasmiin waa ay geeriyootay Allah u naxariisto dad badan ayaa ka falceliyay bal kala sheeg adigu waxa uu la jeeday ma nacayb uu walaashis u qabaa walaashis oo nool ayuu leeyahay waa ay geeriyootay nin faciisa ayaana garaacaya oo jirdilaya asagoo u jeeda ayuuna ku diganaya Yaasmiin ninkii qabay sidoo u jirdilayay ugu dambeyn sanqaroorta ayuu ka jabiyay markii uu waayay wax ka ceshada laakiin ugu dambeyn go'aan ayay gaartay guriga hooyadeed ayayna aaday waxay go'aansatay inay ninkan iska furto guriga hooyadeed ay joogto haddii la rabo madaxa laga jabiye ninkiina waa ay dacweysay waa la xiray waa loo maxkamadeeyay sanad xabsi ah ayaana lagu xukumay laakiin guriga markay imaatay waxa u bilaabatay ciqaabtii walaalkeed iyo hooyadeed markii la soo furay inta ay ciidada ka baxaysay oo dhan guriga ayay ku xabistay waxay tiri banaana uma bixi kartid qofna lama hadli kartid gabadha ciidadeeda markay dhameysatay bishii December 2025 hooyadeed waxay u keentay nin kale oo ay ayadu wado waa nin aan u dhalan dalka Masar waa nin ajnabi ah oo wadamo kale ka imaanaya waxay tiri ninkaas ajnabiga ah ayaa ku guursanaya laakiin shardi ninkan wadan kale ayuu ka imaanaya halkan ayuu kugu aroosaya halkan ayuu kugu qabaya markuu ayaan kula joogana wadankiisa ayuu u laabanaya Yaasmiin waa ay ka hor imaatay waana ay diiday waxay tiri aniga ma iibsanaysaa ma rabo anigu nolosha noocaasa mana rabo ninka aad sheegaysid oo sidaas ila dhaqmaya markii ay waxba ka yeeli diiday oo ay ka dhaadhici weyday
waxay bilowday inay jirdisho inay garaacdo. waxay deganaayeen markii hore guri qurux badan oo guryaha dadka kale la mid ah. xilligaas marka waxay u guureen guri jajaban, dabaq cidla ah, mugdi ah, koronto la'aan ah, foolxumadii ka batay, yacni meel qabri caadi ah oo aan guri caadiyaba lagu sheegi karin. halkii ayay degtay. ugu dambayn 15 bishii December 2025 gabadhii Yaasmiin ahayd waa la waayay. meel ay ku dhibicday waa la waayay. xitaa walaasheed Hinda oo nin kala qabo hooyadeed way weydiisay aawa Yaasmiin ayay dhahday. waxay dhahday Yaasmiin waa la guursaday, wadan kale ayay u safartay. qaraabadii, habaryarihii, abtiyaashi kulli waxay dhahday gabadheedu waa ay safartay waana la guursaday. waxay bilowday gabadheeda inay xirxirto, inay jirdisho, maalin walba waa ay garaaci jirtay. maalmaha ka mid marka Yaasmiin ayadoo meel iska joogta ayuu u imaaday walaalkeed Waa'il, waa u garaacay, waa u jirdilay, kadibna waa ay xanaaqday, waa isxakamay weyday. ayadoo isdifaacaysa ayay ku soo booday, cidiyaheeda ayay wajiga uga xagatay, wajigii ayay ka dhaawacday. markay habartu aragtay in wiilkeedii ay wajiga ka dhaawacday, kal ayay soo qaadatay ama bud, gabadheeda ayay halkaas madaxa ah uga garaacday, dhowr mar ayay ku dhufatay ilaa gabadhii ay dhimatay oo ay dhulka ku dhacday. wiilkii waa uu shoogay, sariirta ayuu ku cararay. markaas wixii ka dambeeyana wuxuu la mid ahaa qof shoogsan oo kale, ma hadlaayo, indhaha ayuu taagayaa, hadalkii ayaa ku dhagay, sariirtii dusheeda ayuu iska fadhiyaa. ayaduna gabadhii ayay soo qabatay meydkeedii, waa ay jarjartay, kadibna barmiil ama fuusto ayay ku shubtay meydkii gabadheeda. markii ay meydka gabadheeda fuustada ku ogaatay ayay waxay xasuusatay in gabadheedu ay wiilkan xagatay oo cidiyaheedu ay taabteen. waxayna ku fikirtay in haddii meydkan la baaro wiilkeeda DNA-giisu uu ka soo bixi doono. intaas kadibna meydkii gabadha ayay farihii oo dhan ka jarjartay iyo cidiyihii. waa ay qaaday hameenkii meel bannaan ah eeyo joogay ayay u geysay, waana ag joogtay oo waa ay ilaalinaysay ilaa ay eeyuhu dhammaysteen farihii gabadheeda. meydkii fuustadii ayuu ugu jiraa oo guriga ayuu u dhex yaallaa. wiilkeedii oo shoogsanna sariirta ayuu dul joogaa. muddo markii ay joogtay wiilkeedii uu la hadli diiday ayay waxay u soo wacday wiil Mustafa lagu magacaabo oo ayada walaasheed ay dhashay. kadibna waxay ku dhahday waxa iga xanuunsan wiilkaygii Waa'il oo wiil oo dhan aan ka haystay, waa uu shoogsan yahay, xanuun aan fahmi waayay ayaan ku arkaa, kaalay soo booqo, kaalay la sheekayso oo la hadal. Mustafa waa uu yimid, guriga ayuu soo booqday, laakiin guriga markuu iridda ka soo galayayba ur ayuu la joogi waayay. ayada ayuu weydiiyey habaryaray waa maxay urkaan, waa maxay waxaan zaa'idka oo ka soo uraya guriga. waxay dhahday wallaahi ma garanayo, meelahan ayay ka soo urayeen, ayaantaanoo dhan waa ay soo urayeen. wiilkii oo shoogsan, wixii maalintii dhacay ka shoogsan ilaa iyo hadda ayuu damcay inuu la hadlo, laakiin wiilkii maba hadlaayo, saas ayuu indhaha uga fiirinayaa. waa uu ka tegay. marka maalmo yar mar la joogay ayay wiilkii Mustafa ahaa haddana mar labaad u wacday. waxay dhahday wiilkayga Mustafow, wiilkaygii Waa'il ahaa waa uu xanuunsan yahay, waad ogtahay, adiguna wiilkayga oo kale ayaa tahay. waxaa taalo gurigayga fuusto ay wasaqi ka buuxdo, wax iga qaada ayaan waayey, baabuur nadaafad inaad soo wado ayaan rabaa oo fuustadan wasaqda ah iga fogeyso. haye habaryar ayuu dhahay. waa uu u imaaday, laakiin inta uusan fuustadii iyo wixii u tegin meel ayay fariisisay, waa ay la sheekaysatay, wixii ay samaysay oo dhan ayay u sheegtay. waxay dhahday fuustadan waxaa ku jira meydka gabadhaydii Yaasmiin, aniga ayaa dilay, waa aan jarjaray, kadibna fuustadan ayaan ku shubay. dambigii oo dhan ayay hortiisa ka qiratay. waa uu naxay, waa uu argagaxay, laakiin waa uu isxakameeyey, ma uusan qaylin, meeshii kama uusan kicin. wuxuu yidhi habaryar sheekadan ii soo bilow, ii faahfaahi. sheekadii oo dhan ayay u soo bilowday. waxay tidhi gabadhayda Yaasmiin nin ayaa iga soo doontay, ninkii markii aan damcay inaan ku daro anigu aan la jeclaadayna waa ay diiday, waa aan garaacay, ugu dambaynna sidii ayay ku dhimatay. meydkeediina waa aan jarjaray oo fuustadan aad u jeeda ayaan ku riday. haye waayahay waa kula qaadaya ayuu yidhi, laakiin waa uu ka cararay, ayadoo u yeeraysa ayuu cararay. wuxuu u tegey abtigiis iyo habaryar iyo dadka qaraabada ah ayuu u tagay. waxba yaan hadal idinku daalin. ugu dambayn Xabso waa la qabtay, booliiska ayaa loogu wacay, sidaas ayaana lagu xiray. laakiin markii la soo qabtay oo baaritaanadii lagu bilaabay, dambigii oo dhanba wiilkeeda ayay dusha ka saartay. ayadu waa isbari yeeshay, waxay rabtay inay nolol caadi ah isaga noolaato, wiilkeedana ay fuustadan ku riixdo. laakiin wuxuu yidhi waa beenteed, aniga iyo walaashay oo isdagaalayna ayay noo imaatay, bud ayay ku garaacday ilaa ay dhimatay, sidaas ayayna walaashay ku dishay. aniguna xilligaas waa aan shoogay, sariirta ayaan dul fuulay. intaas wixii ka dambeeyana naxdin darteed hadalba waa uu iga soo bixi diiday. maxaad ka leedihiin saaxiibayaal dhacdooyinka noocaan oo kale ah? soo dhawaada channelka subscribe dhaha, faallooyinka iyo commentigana ra'yigiina noogu soo qora. aad ayaa u mahadsantihiin. muuqaalka like saara, like to meel dheer ayay muuqaalka gaarsiinaysaa.